متاعك للسفر فجبال أبها تنتظر، وإذا رأيت السحب قل سأكون مثلك يا مطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي kusoo dhawaada xikmado sare oo saameyn leh bisna saxan oo aan saxar lahayn. noloshu waa iskuul, dadkuna waa su'aalo, maalmuhuna waa jawaabo. doontu markay ku xiran tahay xeebta waa amni oo wax khatar ah kuma jirto, balse looma sameyn sidaas ee waxaa loo sameeyay inay badweyntii hirarka waaweyn dul mushaaxdo. adigana sidaas oo kale ayaa tahay, laguma abuurin inaad gacmaha isa saarato. awoodeena bini'aadnimo ma ahan inaan dib u sameyn karno adduunka, balse waxaan awoodnaa inaan dib u hagaajino nafaheena. bartamaha waqtiyada khatarta ah ayaa laga dhaliyaa fursadaha nolosha. walaal macan, dadka kale u noqo astaan. badanaa 3 shay lama qarin karo: qoraxda, dayaxa iyo runta. qofna ha u sharixin noloshaada, sababtoo ah qofka ku rabo uma baahna sharaxaad, kan ku rabin kuma rumaysanayo. sidaas darteed walaal macan, iskaga carar dadka xunxun oo nafsadaada ku hareeray dadka faraxsan, una saaxiibka guusha, jecelna guushaada. carabka caaqilku waxa uu ka dambeeyaa qalbigiisa, halka uu jaahilku ka dambeeyo carabkiisa. jaahilku waxa uu ku hadlaa waxa uu iskaga hadaaqay, halka uu garaadka iyo ninka caqliga u saaxiibka leh uu ku hadlo wax uu ka fekeray. nin xaakim ahaa oo xikmad badnaa ayaa waxa uu yiraahday: sirta farxaddu waa 4. lambar 1, goor hore oo aad toosto. lambar 2, alle oo aad in badan u noqoto. lambar 3, kuwa ku gafa oo aad iska cafiso una dhoola cadeyso. lambar 4, xikmadaha oo aad u raadsato sida cuntada. kama dhigna qof walba ku dhaha waan ku jeclahay in uu ku daryeelayo, balse ogow walaal, waxa ku jecel qof walba oo ku daryeela. doqonku waxa uu sheegaa waxa uu sameynayo, kan doqonka ka mastirsan waxa uu sheegaa doqonku waxa uu sameeyay, balse caaqilku waa uu sameeyaa kamana hadlo waxa uu sameeyay. la fariiso faqiirka, waxa kugu siyaadaya mahadcelinta Allah. la fariiso xaakimka iyo caaqilka, waxa kugu siyaadaya aqli iyo garaad. la fariiso oday duqoobay oo waayeela, waxa ka helaysaa xasuuso hore iyo oraahyo waxtar leh. la fariiso naftaada, waxaad helaysaa go'aan fiican oo ku anfaca. walaal macan, xushmee dareemaha dadka kale, xitaa haddii aysan wax macno kula ahayn, iyaga ayay u tahay wax walba. wixii tagay way ku dhaawici karaan, waa haddii aad marar badan ka fakarto, balse waad ka fogaan kartaa, waxna waad ka baran kartaa. walaal macan, haddii 5 ilbiriqsi oo dhoola cadeyntaada ka mid ah ay sawiri karaan sawir aad u qurux badan, bal dhoola cadeynta haddaad joogtayso, qurux aynkee ah bay noloshaadu ahaanaysaa. xaalad walba kula soo dirista, ha iska lumin, hana rajad dhigin. qoraxdu markay dhacdo xidigaha ayaa soo baxa. waxa badan way yaraadaan markaad damac badan tahay, waxa yarna way bataan markaad ku qanacsan tahay. kan fog wuu soo dhawaadaa markaad jeceshahay, kan dhowna wuu kaa fogaadaa markaad neceb tahay. walaal macan, jooji cabsida khiyaaliga ah, mar walbana ku fakar inaad ka miro dhaliso hoolkaaga iyo dunida dusheeda hadafkaad u saaran tahay. marnaba ha ka ogolaan inuu khaladkaagu dhaawaco qalbigaaga, hana sugin inay kuu timaado guushu. dadaalkaagii laba jibaar adigoo khaladkaaga hore cashar ka baranaya. jooji fikir khiyaaliga ah adigoo bilaabaya ka fekiridda guushaada dhabta ah. walaal macan, dhammaan nolosha waa tijaabooyin. in badan oo tijaabooyin aad samayso ayaad ku xaqiijin kartaa guulahaaga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.